وعلى آله وصحبه وسلم وزير كلوميسيga dawladda Puntland wasiir Faarax aad buu mahadsan yahay runtii qabanqaabada iyo qabashada shirka intaba isaga buddiga u ahaa wasiirku casumaadda dhammaan dadka halkan isugu yimi gaar ahaan wasiirada ka imanayay dawlad goboleedyada isaga qof u wacay aad buu runtii ugu mahadsan yahay aad buu isugu xilqaamay shirkan inuu suuroobo waxaan kale oo si gaar ah iyaguna ugu mahadcelinayaa wasiirada Jubbaland kalluumaysiga koonfur galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug oo dhammaantood nagala soo qayb galay oo meel fogna ka soo safray una dhabar adeegay runtii inay shirkan ka qayb galaan contribution-koodii iyo waxyaabaha ay ka geysan lahaayeen shalay ilaa maanta uga qayb qaatay waxaan kale oo si gaar ah ugu mahadcelinayaa qolada Shuraako oo nagala jooga mahad oo runtii qabanqaabada shirkan qayb weyn ka qaatay iyo Secure Fisheries oo iyaguna suurta geliyay inuu shirkan dhaco bahda kale oo ay nagala joogtaa beesha caalamka iyagana waa soo dhaweynaya waana u mahadcelinayaa ka soo qaybgalka shirkan nagala soo qayb galeen culimaa diinta ganacsatada Soomaaliyeed iskaashatooyinka kalluumaysiga dhammaantiin waa idin wahadcelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkan wuxuu ahaa shir aad u macno badan runtii oo sidii la filayay ka fiicnaaday waxyaabo midho dhalaho fiican ka soo baxeen haddii la isku tashado waxyaabaha uu shirkan kaga fiican yahay shirarkii hore waxay ahayd shir isku tashi buu ahaa ganacsatada Soomaaliyeed baa suuro gelisay shirkan inuu noo qabsoomo oo ka qayb qaatay dhaqaalihii shirkan lagu qabanayay imaatinka iyo qabashada iyo wax kasta hadduu kan qabsoomay marka waxa muuqata in kuwa ka waaweyn oo ka midho dhal badan ay qabsoomi karaan marka wax la bilaabo wuxuu say ku bilaabmaan bay ku socdaan aad bay ugu mahadsan yihiin ganacsatada dhammaan ka qayb qaadatay waxaan kaloo hadda ka bacdi ganacsatada u sheegi lahaa sidaan shalayba u sheegnay inay ka qayb qaataan maalgelinta kalluumaysiga oo runtii wasiir aadan maxamed cali wax fiican uu xasuusiyay hadday ganacsatada waaweyn soo galaan maalgashi kalluumaysi oo waxaan hadda markasta la yiraahdo waxa jooga maraakiib ajnabi ah ama doonyo ajnabi oo badda ka kalluumaysanaya haddii ay Soomaaliya lahaan lahayd hadalkaas oo ma yimaadeen ninka Soomaaliga hadduu kalluumaysanay isaga badiisa leh annaguna waxaan u sahli lahayn inaanu sharciyada u sameeyno oo aan u hagaajino maxaa sharciye iyo markabkeen la ogol yahay keenan la ogolayn hawshuna waa fududaan lahayd dakhliga oo dhamina wuxuu soo gali lahaa dadka Soomaaliyeed iyo waddanka Soomaaliyeed marka in loo soo jeesto oo waa laga jeeday markii hore oo dhaqaalaha meel kale la gelin jiray in kalluumaysiga iyo loo soo jeesto in badda laga faa'iideysto waa baraarujinayna wax fiican weeye waana bilaabantay waxaan kale oo rabnaa inaan iyada lafteeda aan hoosta ka xariiqno haddaan nahay wasaaradda kalluumaysiga ee dawladda federaalka iyo wasiirada kale oo hadda halkan ila jooga oo aan markhaati ka sharayo waxaan doonariska markasta isku haysanaa baryahan waa jirtaa laga yaabaa marar wax kale loo sheegi jiray doonariskii qayb ka mid waa inala joogaan oo waliba naga caawiya arrimaha kalluumaysiga iyo sidii dadka Soomaaliyeed ay u kalluumaysan lahaayeen waxaan isku qabsanaa lacagta aad bixinaysaan shirarka ku bixinin wax muuqda oo dadka xeebaha jooga looga tagi karo ku bixiya waxyaabo badan baan ka hadalay waa jirtay in lacaga badan Soomaaliya lagu cuno ama qaybta kalluumaystada iyo kalluumaysiga ha noqoto ama meelaha kale ee wax laga soo saaro xoolaha iyo beeraha iyo waxyaabaha kale ha noqoto marka aad lacagta dhageysato oo dhaqaaleynta leeg ba Soomaaliya ku baxay wali Soomaaliya say u egtahay inaad fiiriso waa wax aad u kala fog laakiin waxaan ku dadaalaynaa bal wixii hore waa dhamaadeen in hadda wixii la qabanaya ay wax muuqda noqdaan gaar ahaan dadka xeebaha degan anagu maadaama aan bahda kalluumaysatada nahay dadka xeebaha degan la xoojiyo qofkaad kaba ka tolonaysid baa kabihiisa la eega haddii xeebalaydu ay u muuqdaan dad loo iman karo waa loo tagi doonaa marka waxaan rabnaa inaan u ekaysiino dad loo tagi kara inay noqdaan magaalooyinka xeebuhu camirmaan lagu qasbo siduu wasiir aadan sheegay oo khibrad badan oo arrimahan maraakiibta imanaysa kalluumaysiga raadinaysa inay marka hore waxa dadka xeebaha jooga haystaan ka iibsadaan hadday ku filaan weydo marka xal kale loo helaya waxaan kale oo isku daynay oo aad uga caawinay oo aan ku barashar garaynay qolyaha doonariska in loo sahlo dadka xeebaha jooga si
cilmiyeysan waayadii hore sidii loo kalluumaysan jiray waa laga gudbay si cilmiyeysan in loona tababaro qalabkiina loo siiyo ay ku kalluumaysan lahaayeen arrimahaas waa socdaan dad badan oo nagala qayb qaata waa jiraan qaar dhutinaya oo rabay inay sidii hore wali wax u shaqeeyaan oo dollars ka midina waa jiraan marka waa mahadsantihiin waqti dheer baa lagu jiraa wasiir faarax baa sheegay wuxuu yidhi qadadii way naga habsaantay shirku si fiican buu inoo ku dhacay wixii ka soo baxay war murtiyeed ama communique baan ku soo saari doonaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin waa idin soo dhawaynaynaa shirka ku xigana inuu sida kasii xoog badnaado aan isugu nimaadnaa rajaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu